بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. hadda waxaan bilaabaynaa qaybtii koowaad oo ku saabsaneyd macluumaad in aan ka qaadano kitaabka oo qoray alimaam albukhaari. nuqtooyin ayaan u yeelaynaa. nuqtada koowaad, ismul kitaab. kitaabka alimaam albukhaari oo qoray dad badan waxay u yaqaanaan saxiix alimaam albukhaari, laakiin magaca uu alimaam albukhaari uu u bixiyey kitaabkiisa muxuu yahay? alimaam albukhaari kitaabka magaca uu u bixiyey, magaciisa waxaa la yihahdaa الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. magaca dheer ayuu leeyahay oo ku tilmaamayo kitaabka waxa uu ka koobmo iyo waxa uu yahay. waa kitaab aruursaday aljaamic, haddana asaxiix ah, haddana almusnad ah oo axaadiistiisa musnad ay tahay oo aan kala go' lahayn, oo haddana ah min axaadiidi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam iyo sunantiisii iyo ayaamihi calayhi salaatu wassalaam. marka kitaab alimaam albukhaari waxaa la yihahdaa magaca saxda ah oo asaga uu u bixiyey aljaamic asaxiix almusnad min xadiidi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam wa sunanihi wa ayaamih. nuqtada labaad, mawduuc alkitaab. alimaam albukhaari kitaabka oo qoray wuxuu ka hadlaa alimaam albukhaari kitaabkaas sida oo magaciisa ku cad waa axaadiida nebiga calayhi salaatu wassalaam oo sugnaatay, oo axaadiida saxiixa oo nebiga calayhi salaatu wassalaam ka sugnaatay. marka kitaabka wuxuu ku sheega alimaam albukhaari axaadiidta uu keenaya waxay tahay waa axaadiid kulligeed saxiix ah, sida laga faa'iideysanayo magaca kitaabkiisa. ومع ذلك alimaam albukhaari kitaabkiisa keliya maahan axaadiid oo tirinaya keliya maahan, laakiin wuxuu u sameeyey abwaab ayuu u sameeyey. abwaabtaas wuxuu ku sheegaa axaadiid ama aqwaal asaxaaba ama aayado ama aayadaha wax laga faa'iideysanayo macaani badan oo ama fiqi ah ama tafsiir ah ama siire ah ama waxyaabo badan ayuu sheegaa oo dadkii culamadii ay ka faa'iideysteen. marka kitaabka alimaam albukhaari mawduuciisa waxa waaye axaadiidii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo ka sugnaatay inuu sheego, iyo axaadiidtaas in uu u sameeyo tarjumooyin, abwaab inuu u sameeyo, abwaabtaas oo caddaynayso xadiidka uu soo aroorin doono waxa uu ku saabsan yahay iyo waxa laga qaadanayo iyo waxyaabahaas. marka intaan u gudagelin abwaabta bukhaari uu u sameeyey mawduucay ka hadlayso ama axaadiidan alimaam albukhaari oo soo aroorinayo waxyaabahaas macluumaadka intaan gudagelin, waxaan ka hadlaynaa sababta alimaam albukhaari ay keentay kitaabka inuu sanifo. maxaa yeelay waqtigiisa iyo wixii asaga ka horreeyey kutubo badan ayaa la qoray. marka imaam albukhaari kitaabka uu qoray muxuu sababta ku bixisay inuu kitaabkan habkan u qoro maxay tahay? dib haddaan ugu noqono waxaan arkaynaa aathaarta nebiga calayhi salaatu wassalaam ama axaadiistiisa iyo akhbaartiisa ma ahayn kuwo qoran waqtigii saxaabada, waqtigii nebiga ama waqtigii saxaabada, ilaa uu ka yimaado cumar bin cabdilcaziiz raximah llahu tacaala. isaga ayaa amray in sunantii nebiga calayhi salaatu wassalaam in la tadwiiniyo tadwiinan rasmiyan, in la qoro. zamankii asaga ka horrey cumar bin cabdilcaziiz axaadiid nin walba qeyb ayuu iska qorqortay, meel ayuu iska dhigtay, laakiin in axaadiidtii nebiga oo dhan lasoo aruuriyo oo la qoro sida qur-aanka loo qoray oo kale zamankiisa ayay dhacday raximah llahu tacaala. taana waxaa laba sabab ayaa u sabab ahayd. maxaa yeelay saxaabada waqtigii nebiga calayhi salaatu wassalaam joogtay iyo zamankii taabiciinta dad waxay ahaayeen xifdigood aad iyo aad u weyn yahay, uma baahnayn marka inay waxyaabaha qaarkood ay qoraan. tan kale waxaan arkaynaa axaadiidta nebiga calayhi salatu laga soo wariyey oo reebaya nebiga calayhi salaatu wassalaam in axaadiidtiisa la qoro. labadaas sabab darteed ayaa keentay in axaadiidta nebiga calayhi salaatu wassalaam aan la wada qorin sida qur-aanka loo qoray oo kale. laakiin waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wassalaam axaadiid kale inuu ku amray in ay axaadiidtiisa ay qoraan, oo dadka qaarkood in loo fasaxay in ay axaadiidtii nebiga ay qoraan. marka culamadii dhan way isku waafaqeen markii dambe in axaadiidtii nebiga la qoro. markii ay badatay dadkii dacfigooda xifdigood oo yaraaday amba dad badan ay soo galeen oo muslimiintii ay acdaadooda ay soo galeen oo rabaan inay axaadiidta nebiga inay ka been sheegaan, oo kadib markuu fiday oo
muslimiintii firqooyin ay u qeybsameen oo firqo walba markaa maaragtay ay samaynayso axaadiid oo ku ayidayso madhabteeda iyo waxyaabahaas. marka taa ayaa keentay marka in culammadii ay axaadiid ay aruuriyaan. marka waxaa dhacday zamanka asaga ah maarata cumar bin cabdilcaziz zamankiisa laga soo bilaabo ilaa maarata waqtiga alimaam albukhaari culammadii axaadiidii ayay soo aruuriyeen. marka nin walba wuxuu soo aruuriyey wixii asaga uu soo wariyey ayuu soo aruuriyey. culammada marka axaadiidii ay qoreen laba qeyb ayay maarata laba manhaj ayay ku socon jireen. qeybna waxay ahayd qeyb la yihahdo almasaaniid, sida alimaam axmed bin xambal uu sameeyey musnadkaas, iyo culamo badan ay sameeyeen masaaniid. in ay musnadna waxaa la yihahdaa jamcu axaadiida kuli saxaabiyin calaa xida, sida abubakar oo kale radia allahu canhu axaadiidta abubakar uu soo wariyay o dhan in hal meel laiskugu aruuriyo, sida cumar bin khataab sidoo kale, cuthmaan sidoo kale, cali sidoo kale, wahaakada sida uu yeelay alimaam axmed bin xambal. wuxuu ku bilaabay axaadiidta abubakar, musnad abi bakr, huma musnad cumar, huma musnad cuthmaan, huma musnad cali bin abi talib, ilaa tatimat alcashar almubashiriin ilaa haakada. culamo kale waxay sameeyeen axaadiidii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay soo aruuriyeen, waxay maaragtay ku ratibeen cala alabwaab. kitaabu salaa ayay leeyihiin, axaadiidii salaada kusoo aroortay ay hal meel ku aruurinayaan, kitaabu sawm, kitaabu zakaa, wahaakada. marka waxaa dhacday labada qoloba maaragtay oo aimada ah oo axaadiidta saa u qoraysay, nin walba marka wuxuu qorayay axaadiidta asaga soo gaartay. marka kalama saari jirin axaadiidta saxda ah iyo axaadiidta daciifka ah ama axaadiidka xasanka ah. marka nin walba wixii soo gaaray ayuu soo aruurin jiray. marka waxaa dhacday alimaam albukhaari waqtigiisa markii la gaaray laba sababood ayaa keentay marka alimaam albukhaari in uu axaadiid kitaabkan inuu bilaabo inuu axaadiidta saxda keliya inuu soo aruuriyo. labada sabab mid ka mid a waxay ahayd alimaam albukhaari wuxuu leeyay kunaa cinda isxaaq bin rahuya. alimaam isxaaq bin rahuya waa a'imat alxadiid ka mid ah oo shuyuukh albukhaari ka mid ah, ayaa wuxuu yiri alimaam albukhaari annagoo agtiisa joogno wuxuu yiri ninkaas imaamka ah, low jamactum kitaaban mukhtasaran lisaxiixi sunnati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam, waxaan u baahnaan lahayn qof noo qoro noo aruuriyo axaadiidta saxda ah saxiixi sunna. marka alimaam albukhaari wuxuu yihi fawaqaca dalika fi qalbi, taa arrintaas ayaa maaragtay igu bixisay inaan faakhadtu fi jamci aljaamici asaxiix. inuu marka waa min ishaaratin min shaykhihi oo maaragtay raqba oo alimaam isxaaq bin rahuya uu yiri maaragtay haddii la samayn laha arrintaa way fiicnaan lahayd. bukhaari taas ayay ku bixisay inuu axaadiidii uu soo aruuriyo. culamada qaarkood waxay sheegaan oo riwaaya bukhaari laga soo wariyay asagana wuxuu yiri alimaam albukhaari wuxuu yihi ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam fi lmanaam, nebiga ayaan riyo ku arkay, wa kaananii waaqifun bayna yaday, anigoo hortiisa taagan, wa biyadii gacanteedana ay ku sugan tahay marwaxa adubu biha canhu. fasa'altu bacda almucabiriin, ayaan weydiiyey tafsiirka ru'yadaas, faqaala lii anta tadubu canhu alkadib fahuwa aladii xamalanii calaa ikhraaji aljaamic asaxiix. taas ayaa gu bixisay in aan maaragtay axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam inta saxda keliya inaan soo aruuriyo. marka taa waxay ahayd asbaabta keentay alimaam albukhaari in uu kitaabka uu qoro oo ka dhigo in uu ku gaabsada keliya axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay keliya, oo iska daayo axaadiidta daciifka ah ama axaadiidta maaragtay mukhtalaf fiiha waxyaabahaas oo dhan. marka alimaam albukhaari arrintaa ayuu u istaagay. marka hadda waxaan soo sheegnay kitaabka bukhaari magaciisa, kitaabka bukhaari maaragtay mawduuciisa, kitaabka bukhaari sababta ku bixisa in uu qoro. marka alimaam albukhaari wuxuu leeyay sanaftu kitaaba saxiix fi 16 sana. kitaabka saxiix albukhaari aruurintiisa iyo tasniifkiisa waxay iga qaadatay 16 sano. wakharajtu min 600,000 xadiid, axaadiidta meeshaan aan kusoo aruuriyey waxaan kasoo doortay 600,000 oo xadiid. alimaam albukhaari wuxuu xifsanaa 600,000 oo xadiid ayuu xifsanaa. marka inta axaadiid uu yaqaano ayuu wuxuu kasoo xulay kitaabkan inta uu ku sugay. wuxuu yihi wajacaltuhu kitaabkan waxaan ka dhigay xujatan baynii wa bayna allahi caza wajal. marka hadalkaa wuxuuna tusin karaa alimaam albukhaari juhdiga uu bixiyey uu ku bixiyey kitaabkaas soo aruurintiisa
oo muddadaas dheer ay ka qaadatay ay inta uu maaragtay axaadiid uu ka soo xulay ayuu maaragtay kitaabkaas wuxuu ugu talagalay raximah llahu tacaala. tan kale dhinaca kale haddaan ka fiirino alimaam albukhaari sidaan tiiradiis aan kusoo sheegnay wuxuu ahaa nin ilaahay subxaana wa tacaala ku xiran, nin ilaahay ka baqo, wuxuuna og yahay alimaam albukhaari istikaarada faa'iidada ay leedahay. sidaa darteed wuxuu yidhi alimaam albukhaari maa wadactu fi kitaabi hada xadiidan ilaa iqtasaltu qabla dalika wa sallaytu rakcatayn. kitaabkaygan kan ah xadiid ma soo dooranin oo kuma qorin ilaa waxaan samayn jiray waa qubaysan jiray, 2 rakac ayaan dukan jiray. sidaa darteed waxaa laga wariyey bukhaari kitaabka wuxuu ku qoray maka almukarama, maa u zamzam ayuu ku qubaysan jiray, 2 rakac ayuu khalfa maqaam ibraahim ayuu ku tukan jiray, kadib ayuu maaragtay xadiidka markuu istira xadiidkan waa istaahilaa meesha marka qalbigiis hadduu ku inshiraxmo meesha ayuu ku qori jiray. riwaayo kale ayaa bukhaari laga soo wariyey in kitaabka abwaabtiisa taraajumteeda in uu ku qoray madiinat almunawara bayna alrawda wa bayna mimbar الnabiy calayhi الsalaatu wassalaam. marka maaragtay taana waxay tusinaydaa kitaabka qiimaha uu leeyahay iyo maaragtay imaam albukhaari meesha u doortay inuu kitaabka ku qoro. marka waxaa dhacday maadaama aan soo sheegnay imaam albukhaari kitaabka inuu ku qoray 16 sano, culamada waxay yiraahdaan oo ka mid yihiin alimaam xaafid ibn xajar alcasqalaani wuxuu yidhi 16 sano alimaam albukhaari maka keliya ma joogin, wuu bixi jiray oo soo socon jiray. marka wuxuu samayn jiray alimaam albukhaari markii uu axaadiida qaarkood markuu meelaha kusoo calaamaysto maka markuu yimaado ayuu meesha ayuu ku qorqori jiray. laakiin lagama wado maka inuu 16 sano fadhiyey oo axaadiida meesha uu ku qoray lagama wado. marka intuu meelaha kusii maqan yahay o dhan oo axaadiida ay kusoo dhexayso qalbigiis meela ayuu kusii calaamaysan jiray, maka markuu yimaado ayuu tabyid uu ku samayn jiray. marka taa waxay tusinaydaa kitaabka alimaam albukhaari uu qoray fadliga uu leeyahay. waa kitaab intaas juhdi lagu bixiyey, 16 sano ayuu imaam bukhaari ka qaadatay inuu soo aruuriyo kitaabkaas oo kasoo diyaariyo oo kasoo lakhiso 600,000 oo xadiid. marka sidaa darteed nuqdada afraad waxaan ka dhignay makaanata saxiix. kitaabka alimaam albukhaari uu qoray makaanada culamada agteeda uu ku leeyahay. alimaam nawowi wuxuu leeyahay culamadu waxay isku waafaqeen kutubta oo dhan kitaabka ugu saxsan inuu yahay qur-aanka haddii laga reebo kitaabka albukhaari. asax alkutub bacda alqur'aan alcaziiz saxiix albukhaari uma bacdahu saxiix muslim. marka taa imaam albukhaari juhdiga uu bixiyey ikhlaaskiisa iyo waxiisa oo dhan ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigay in kitaabkiisa inuu kor yeelo oo maaragtay uu noqdo qur-aanka kitaabka ku xiga inuu noqdo. culamada dhan ayaa isku waafaqday, culamadii ayaa ummad watalaqathum alumma bilqabuul bukhaari iyo muslim kitaabkooda. sidaan soo sheegnay muslim bukhaari ayuu ka faaideysan jiray. waa marka maaragtay taana waxay tusinaydaa maaragtay imaam albukhaari kitaabkiisaan maaragtay makaanada uu leeyahay oo ummadda agteeda uu ku leeyahay iyo culamada ay ku leeyahay. marka alimaam albukhaari kitaabkii marka uu qoray culamadu waxay yiraahdeen kitaabkii waa la qaaday, culamadii zamankaa joogtay dhan ayaa loo geeyey. alimaam axmed ibn xambal, yaxya ibnu maciin, cali ibnu madini, culamadii dhan ayaa la tutusay oo layidhi bal ka warrama kitaabkan. kulli waxay isku waafaqeen axaadiidta meeshan ku jirto o dhan inay sax tahay. qaar culamada ka mid ayaa waxay yiraahdeen 4 xadiid ayaa maaragtay aniga maaragtay ay ila tahay inuusan maaragtay saas ahayn, laakiin markii culamada ay maaragtay iskugu noqdeen waxay garteen ra'yiga bukhaari inuu axaadiista dhan inay sax tahay. marka taa baabkeeda wuu xiran yahay, culamada dhan ayaa isku waafaqday marka bukhaari axaadiista ku taaloo dhan in ay sax tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka sugnaatay. marka nuqdada kale oo aan ka hadlayna waxay tahay cadad axaadiidi. alimaam albukhaari kitaabkiisan hadda waa la tarqiimiyey oo maaragtay 1 2 3 ayaa loo sameeyey. marka tiradiis way iska caddahay. culamada hore waxay dhihi jireen maaragtay cadad kitaab saxiix waxa waaye 7275. alimaam ibn xajar asaga wuxuu yiri aniga maaragtay markaan dib uu iskugu noqday aan raadiyey marka maaragtay tiro kale ayaa ii soo muuqatay. marka maaragtay wuxuu yiri alimaam ibn xajar
axaadiidta bukhaari qaarkood way soo noqnoqdaan. halka xadiid ayaa waxaa laga yaabaa inuu dhowr jeer inuu soo celceliyo. marka haddii laga reebo soo celcelintaas, wuxuu yidhi axaadiidta bukhaari waxa waaye 2602. haddii lagu daro maaragtay mutuunta oo maaragtay axaadiidta marfuucada ah oo bukhaari oo tacliiq uu ku sameeyey, tacliiqan macnihiisu waxa waaye in maaragtay xadiidka qeybtiisa hore inuu iska tuuro oo uu sheego bukhaari maaragtay ama taabicigii ama saxaabigii ilaa nebiga caleyhi salaatu wassalaam, waa 159 xadiid. marka haddii la isku daro waxa waaye waa 2761 xadiid oo biduuni mukarar ah. marka maca almukarar iyo kulli haddii la isku daran waxay noqonaysaa 9082 xadiid. marka intaas waxay tahay maaragtay axaadiidta alimaam albukhaari oo maaragtay taariikh maaragtay kitaabkaas macluumaad asaga ku saabsan. marka waxaan ka hadli doonaa marka dambe bukhaari maaragtay sidaan u soon doono aan arki doono xadiid keliya ayaa waxaa laga yaabaa inuu dhowr jeer soo celceliyo, xadiidkii inuu kala googooyo oo qeyb walba baab inuu u sameeyo. taa darteed xikmooyinka taas keentay inuu bukhaari saas u sameeyo ayaan ka hadli doonaa liqaaga dambe. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa liqaaga dambe abwaabta bukhaari oo u sameeyey kitaabkiisan xikmadaha oo maaragtay meesha uu kusoo bandhigay. wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed.